فرينتا مشرحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ولا ليال دالكينو مددي لحدن كسنة هيد او حرتها وحصوم مري ظروف أدق او سياساديد أمني دغن دغالة يبلشو waxaa ugu cuslaa duruufahaas burburkii qaranka iyo dagaaladii sokeeye kuwaas oo sababay colaad bulsho burburan xad lahayn iyo barakac aad u baahsan. dagaaladii sokeeye waxay sababeen xagjirnimo hoos u dhigtay qaran dhiskii dadka qaarna ku abuurtay faham xumo diineed iyo qabyaalad baahsan oo la maciinsaday markii dawladnimadii fashilantay. xagjirnimada lala xiriiriyay diinta islaamka waxay si gaar ah u dhashay argagixiso caalami ah oo khatar weyn ku ah amniga, nabadda, dawladnimada, horumarka dalka, jiritaanka qarannimo iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed. laga soo bilaabo shirkii Carta ee sanadkii 2000 oo dib loo dhisay dawladdii Soomaaliyeed waxaa socday dadaallo la isugu soo celinayo dadkii Soomaaliyeed ee dagaalka sokeeye ku kala irdhoobay iyo dib u yegleelidda qarankii Soomaaliyeed. dadaaladaas muddada 20 sano ka badan socday waxayna soo gaarsiiyeen horumar bilow ah iyo aasaas dawladnimo. waxaan shaki ku jirin inaysan isku dhigmin dadaaladaas iyo heerka ay soo kabashadeenu gaarsiisan tahay. sidaas darteed waxaan ku qanacsanahay in dalkeennu u baahan yahay hoggaan leh higsi iyo hufnaan uu ku soo celiyo dawlad dadku wada leeyihiin, dhowrtana dastuurka iyo shuruucda dalka oo ku salaysan mabaadi'da diinteenna islaamka. anigoo aragtidaas ka duulaya, higsigaygu wuxuu ku salaysan yahay xasilinta iyo horumarinta dalka, adkeynta cadaaladda iyo garsoorka, dawlad wanaagga, hagaajinta xiriirka heerarka dawladda, kobcinta dhaqaalaha, bixinta adeegyada bulshada iyo shaqo abuurka. howlahaas aan soo xusay lama xaqiijin karo haddii aan dadka Soomaaliyeed heshiis ahayn lana adkaynin xiriirka aan la leenahay dawladaha caalamka ee danuhu naga dhaxeeyaan. inkasta oo howlahaasi baaxad weyn yihiin, haddana waxaan kalsooni buuxda ku qabaa inaan tallaabooyin muhiim ah qaadi karno, guulna aan ka gaari karno. barnaamijkayga doorashada madaxweynenimo waxaa saldhig u noqonaya isbeddel ballaaran oo lagu sameeyo dhaqan siyaasadeedka, dhaqan howleedka iyo hanaanka hogaamineed ee dalka. waxaan dalka ka hirgelin doonaa isbeddel lagu gaaro hanaan dawladnimo casri ah, dimuqraadi ah, ku shaqaysa saraynta sharciga, heshiisna lagu yahay. hiigsiyada muhiimka ah ee barnaamijkayga waxaa ka mid ah in dalka lagu soo dabaalo nidaamka xisbiyada badan si loogu tartamo aragtiyo iyo afkaaro siyaasadeed oo lagu horumarin karo dalka. qorshahayga waxaa astaan u ah hiigsi iyo horumar noo horseeda Soomaaliya xasiloon, barwaaqo ah, nabad iyo cadaaladna ku wada nool. waxaa sharaf ii ah inaan halkan idinkula wadaago barnaamij siyaasadeedkayga aan ku howlgeli doono haddii la ii doorto xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. barnaamij kasta oo la sameeyaa kama maarmo howlkarnimo, karti, hufnaan iyo dadaal dhab ah, sida xikmadda Soomaaliyeed ay odhanayso, xagla laaban xoolo kuma yimaadaan. allah tawfiiqda ha ina waafajiyo.